بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. guud ahaantiin badawadayaasha qiimaha badan ee daafaha caalamka nagala xiriiro waxa farxad noo ah maanta maalin sabtiya isla markaana bisha Julayna ay tahay Sodon kuna sugannahay hotel Stag and Fish in magaalada Hargeysa inaan idin soo gudbino barnaamij xog waraysiya oo aad u qiimo badan oo dabcan qayb ka ah barnaamijyo hore oo barnaamijka la xiriira kuna saabsan qoritaankii afka Soomaaliga ama samayntii far Soomaaliga xiliyadii maraaxilkii ay soo martay farxad waxa noo ah inaan la kulanno Xuseen Sheekh Axmed Kadare oo laga yaabo in badan oo idin ka mid inaad maqasheen sayeeshe safar ku yimi magaalada Hargeysa aanu la kulannay barnaamijkana aanu kaga duubnay Xuseen Sheekh Axmed dabcan waa rugcada aqoon-yahan hal abuur qoraa arrimo badan isku darsaday 1934 ayuu ka dhashay meesha la yiraahdo Cadale oo ka tirsan Shabeellada Dhexe uu halkaas ku barbaaray dugsigiisa hoose waxbarashadiisa hoose ku qaatay kadib isagoo 9 jir ayuu u soo gudbay Xamar halkaas iyadana waxbarashadiisii hoose dhexe sare uu ku diyaariyay isagoo halka ka galay iskuul Talyaaniga oo ila dugsi sare oo ka baranayay iskuul Carabiya ayuu isagana qaatay uu beeska hoose masaajidada laftooda wuxuu ka diyaarsaday inuu ka diyaarinayay arrimaha diiniga ee Carabiga laftooda waxa kale oo fariyadana farxad hayd inuu isna si waxbarashadan dadban loo yaqaano correspondent ama uu qofku kala xiriirayo oo iyadana wax ku bartay British Tutorial College waxa kale taariikhdiisa inkastoo la soo koobi karin guud mar baynu ku sameeynaa cilmi baarisooyin badan oo sameeyay kadib jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo iyadana baraka ahaa ayuu iyadana ka qaatay bachelor degree ka diyaariyay afafka ah waxaan jecelahay inaan imika ku soo dhaweeyo Xuseen Sheekh Axmed dabcan maadaama waqtigu nagu gaaban yahay su'aashan jecelahay inaan hor dhigo waxay tahay inuu maadaama uu kamid ahaa guddigii aan hore idin soo sheegay afka Soomaaliga hawl badanna ay guddigaasi soo qabatay mashaakil farbadan ka hor yimaadeen bal inaan arinta wax ka weydiyo guud ahaan horta bal inuu xuso afka Soomaaliga in la qoro bal hindisihiisu sidoo ku yimi in marka hore saa guud mar nagu sameeyo deedna naga geli doona maxay ahayd fartii uu sameeyay iyo hawshii ka sii hooseysay aan ku soo dhaweeyo Xuseen Sheekh Axmed بسم الله الرحمن الرحيم أدان udegdego su'aasha jawaabteeda waxaa jiray far Cusmaaniye la yiraahdo oo mar hore Cusmaan Yuusuf Kennedy oo sameeyay fartaas xilligii leegadu ay xisbi ahaan u cusbeed xoogana lahayd ayaa wax lagu baro jiray oo warqadaha la isku qori jiray marka waxay ahayd xuruuf kala go'an sidii fartaan Hindiga iyo Amxaarada marka fartii aan bartay laba dhaliiloodan marka meesha ka helay labadu waxay kala ahaayeen marka hore far gacanta lagu qori karo isku darmaysa ma ahayn marka labaad ya'da iyo wowgu waxay ahaayeen marna consonant marna vowel isla ayagii oo ilmaha markay wax baratagaan waa ku wareerayeen waxaan isiri marka xuruuf sameey xuruuftuna ha noqoto mid kala go'an iskuna dardaran oo sida faraha adduunka yaala oo kala u eg labadan xarafna kala saar oo vowelna u sameey maaragtay consonant kala saar labadaas oo maaragtay
isku soo noqonayo isla xaraf labadaba yahay muddo igu qaadatay waa ku guulaystay in xuruuf codadka af Soomaaliga daboolaysa oo tira ahaan iyo haddii alla idmahayo cod ahaan u daboolaysa inaan helo anugu kaligay iskuma kalsoonaan dad badan oo aqoon leh ayaa markaan wixii sameeyaan nin walba u bandhigay oo haddii alla idmahayo ka waran iri ceeb ka sheeg wax ka sheeg qof waliba maaragtay wax ii sheeg laakiin waxay ku dhamaatay wax hakiya oo ceebaala in meeshii laga waayay anagoo sidaa markaa isugu kalsoon ayaan waxaa jira urur la yidhaha ururka ardada ururka maaragtay ardada Soomaaliyeed markaa keligii xamar ka jiray daar weyn oo xafiis u ahna lahaa daartii aan maaragtay aan ku bandhigay oo ardada iyo kulli la isugu yeeray dadkii markii ugu horeysay 1952 fartana markaa imisa sameeysadana xilliga soo bandhigtay xilliga soo bandhigtay xilligaas maya farta 52 kiyaan sameeyay 52 kiyaan sameeyay bandhiga waa isku khalday bandhigu waa ka dambeeyay yani iyadoo jirtay ugu yaraan 6 sano aan xamar aan iskoolaad inta ka sameeyay aan dad ku barbaray ayaan maaragtay soo bandhigay markii dambe waa la igula taliyay oo waxaa la yiri sida dadka uqadim waxa marka shacbiga sidaas markii aan soo bandhigay waxa markaas wax kala ma jirin waxa farta Cusmaaniyada iyo iyada kaliya ha maaragtay magaalada ku tartamay oo far Soomaali cusub ahay urur goosanka la yiraahdo ay farta Cusmaaniyada ayaa waday aniga tan marka hore ana kaligay waday kadib aan u sameeyay guddi maaragtay faafinteeda ala kulli xaal 59 ayaa dawladdu xurriyadda 60 marka la qaadanayay waxay go'aansadeen in xurriyadda marka la qaato afkana la qoro guddiga la sameeyay 8 qof ahay waxa jeerman u ahay Muuse Galaal waxaan bilownay markaas jaamacadda Shabeelle ayaa markaa kaliya ka jirtay xamar meeshaas xafiisna la ka siiyay meeshaas aan ku shaqeey jirnay waxaan habeynay waxaan diiwaan gelinay farihi annagu markaa aan naqiin oo aan haynay waxaa la xaasil noqday markii kuwa aan diiwaan gelinay iyo markii aan iclaaminay in 15 maalmood qofkii farhaya keeno fara badan oo markaa la keenay oo ay muuqatay inaan daraasad dheer lagu sameyn sidaas haddii alla idmahayo qoraalkii iyo imtixaankii faraha lagu sameynayay iyo daraasadoodii iyo wixii oo dhanba ayaan ku dhamaysanay waxaa faraha soo tartamaya waxay ahaayeen markaa 18 12 waxay ahayd xuruuf Soomaali cusub ah afarna waxay ahayd xuruuftan laatiinka in wax lagu qoro dad qaba saddexna waxay ahayd carabiga in wax lagu qoro dad qaba bas farihi Soomaaliga ahaa laba ka soo hartay inta kale
وينقون ويدي ماركتي فر كاملة وعدك الصومالي ماركتي وحصلنا شروطان صمينا شروطه وكم صوبحين كوي كله لبا دي الإدمة هاي laga soo qaaday farti Cusmaaniyada iyo tii anigu aan sameeyay ayaa laga soo qaaday inta kadib waxaan bilownay kala saaridii faraha kala saaridii markaa waxay dhashay in aan number 1 u qaadano xuruufta Laatiinka oo anagu aan habeynay sida hadda maanta loogu dhaqmo guddiga u habeeyay sidaas oo codadka u dhameystiray xuruufta anigu aan sameeyay waxa loo qaatay number 2 rabot 73 page ahaan ka soo saarnay waa u bandhignay dawladii markii aanu baryeynana waxa bilowday culamaa diinka xamara bilaabeen mudaharaad laatiin laadiin ay yiraahdeen oo laatiinka ay ku diidan yihiin xuruufta laatiinka madaxweynihii koowaad oo markaas mas'uuliyadda maaragtay hayay ayaa yiri mudaharaad iyo rabash kuma bilaabo karnaa hal joojiyo markaa imsadii waa imsadii 60 kiba waa 60 بس للحدن كيون ما أنت حرية على الربع إن فرت البندق ما وقت صح عدد ديدي كدب جدجي لحدن إيو كوي أيال بلاري دراسات كلا لسي سمي لكن ما أهين دراسات مد هرومر سمينا يسوي هذا dood iyo maaragtay si loogu dhawaaqaa oo afka loo qoraa waagi oo barnaamij ministarka ahaa Cabdirasaaq Xaaji Xuseen ayuu wuxuu dalbay UNESCO inay noo soo diraan guddi sameeya waxa aan anagu sameeynay ka bixiya talo oo si cilmiya wixii u fiiriya guddigii maaragtay waa yimid saddex nin oo la soo diray timid UNESCO soo dirtay waa darseen waa qaateen dadweynahana waa wareysteen muddo kadibna waxay soo saareen buug warbixin ah oo ay labada farood ee guddigu soo propose gareeyay ay ayaguna aqbaleen oo laakiin ay ku talinayaan in laatiinka la qaato maadaama xuruuftiisa ay ardaydu taqaan maadaama ay haddii alla idmahayo makiinadaha yaala dalka iyo madbacaduhuba ay xuruuftaas yihiin oo ay Soomaalidu ayan kari karin inay far cusub u samayso waxaasoo dhan iyadana dadkii tartamay islama aqbalin waa socotay doodu waxaa markaas hadii alla idmahayo dhashay kacaankii ayaa maaragtay 69 kacaankana marka warqadii koobaad iyo warqada labaad soo saaray oo nidaamka ku shaqeynayay tan koobaad wuxuu ku daray inuu afka qorayo inuu qorayo laba 70kii guddi horta marka hore la sameeyay oo anagu guddi ahaan la magacaabay guddigii waxa la yiri dugsiyada hoose noo diyaariyo buugtoodii farta ku dhawaaqadeedana anaga noo taalaahe marka waxaad buugta ku qoraysaan buugtana waxaan ku qoraynaa ba anagu inta tashanay waxaan yiri xaajadu fartaan xuruuftan isla naqaanaa laatiinka aan ku diyaarin hadhow hadii farka la qaato صح iyada loo bedel doonaa marka ma Soomaali baa lagu qorayaa mise luqadihii kale Soomaali lagu qorayaa bas sidaasay maaragtay
buugtii aan diyaarinay kacaankina markii buugtii la diyaariyay sikadiisa ayuu maaragtay guddiga ugu yeeray waxa ku xuruufta laatinka in afka lagu dhigo ku dhawaaqay go'aash imisadii markaa 27 isla markaa in yar kadibna akademiyada maaragtay hadda akademiyada cilmiga iyo maaragtay fanka ayaa la yiraahdaa akademiyada dhaqanka ayay maaragtay ku dhawaaqeen oo la sameeyay markii hore lagu bilaabay dariiqaasaan soo marnay ololihii af Soomaaliga la sameeyay la sameeyay مسدح توات كيبو بلاوضي مسافر توات كيبو ها والله ololaha ololihii afka fidinta ololuhu wuxuu ahaa markii farta dadka la baray ayaa la yiri miyigana hal gaarsiiyo meel kasta Soomaali joogto sax marka ciidan faraweyna lagu kiciyay oo maaragtay yani meeshaan hadda Hargeysa qoraalka iyo akhriska ololaha lagu bilaabay sax ololaha la nooc ah laakiin ka xoog badan ayaa lagu bilaabay ilaa dadkii xuruufta la soo baro sax mi iyo magaalo la soo baro dariiqaas ayaa afka qoraalkiisu maray wuxuu gaaray markaa shaqaalaha in shardi looga dhigo inay shaqaalaha maaragtay waxaan annagaana la yiri bara oo inta meel lagu baro xaruntii leegada iyo meesha jaamacadda iyo meel saas inta la sameeyo waliba baliiska oo ku shaqeey lahay afka oo dambiyada ku qori lahay iyo shaqaalaha dawladda ku shaqeey lahay iyo intaas wax la baro ugu horeeyay annagu hadda waxaan ahayn dadkii inta faraha sameeyay in faraha afka lagu qoro muddo dheer u halgamayay yani nafiska ugu horeeyo aan helnay oo aan ku raaxaysayna waxa ahaa in afka la qoro la isku raacay afka marka la qoray dugsiyada hoose buugtooda iyo buugta dugsiyada hoose iyo waxa la sameeyay naxwo basic ah oo maaragtay buug yar oo naxwa oo basic u ah maaragtay oo qaabkiisu oo kooban yahay laakiin la fahmi og yahay waxaa loo dhaafay dadka Soomaaliyeed ee mutacalimiinta ah inay baxsi ka qayb galaan tartan wuxuu hadii tartan ay galaan ay hore u kacleeyeen tartanka ay ku timaad afkana lahjad gaar ah lagu qoro lama dhigin waxa yiri Soomaali lahjadaheedo dhan xuruuftan waa qoraysaa iyaduna ha noqoto hees reebaan lahjadu ay raftoodu muddo dheer haday socdaan marka dambe la arko iyadoo mid kale lagu hadlaa marka waxa la iska jiray in maaragtay oo la dhihi karo adiga lahjadaada waa xun tahay waa laga tagay sax waa la waayay good yiri oo kala taas waa dhihidaas laakiin afku marka hore waa may iyo maxatiri horta guud ahaan oo marka guud ahaan maxatiri marka la yiraahdo afguri waxa la yiraahdo leedahay afguri oo qolo walba wax si gaar ah si yaro hoosa ay u hadlayso waxa marka dambe arkaysaa meel yar wax ku soo harayo laba kelmadooda oo qolo kale uu taqaano yar oo dadka kale asan la aqaan sax marka waxa soo dhan waxa loo dhaafay in afka kobcintiisa baxsi caama ay maaragtay ku dhashaan aan maaragtay la jajuubin dadka cilmiguna saas uu ku fiican yahay riyada cilmiga saas su'aal bay hadaba inuu meesha keenina oo dabcan dadkeena daawanayaan aad isu weydiinayaan oo ah Xuseen Sheekh Axmed isagu markii uu fartan sameynayay maxaa ku kalifay tolay maraxil nuuceebay la martay in yaro kooban bal arinta hadda dil dur taagtay iyadana qayb horaan u sheegay farti Cusmaaniyada
ayaa horta igu dhalisay inaan far sameeyo labada dhaliilood aan hor u sheegay ayaan is iri faraan lahayn dhaliilahaas sameey afka ileen in qoraal rabaa waa sameeyay waana ku guuleystay taas ما شاء الله waxaa soo haray rabitaan mid ka sareeya asan jirin afka in la qoro aan rabo oo aanan shaqo kala qaban dan anigu aan leeyahay ma qabsan waagaas baxsiga aan sameynayay ilaa ma aragta ma yani weligeyba wax aniga gaar ah wixii tara ma samaysan wax caam ah oo dadka ka dhexeeya maahan صح marka waa dad badan oo waxtar ah oo aqoon-yahan ayaa farta iyo qoraalka iyo waxaasoo dhan ka qayb galay laakiin qolana waxay ahayd wax la yidhaha darcilis صح darcilis qolana waxay ahayd gurmad ayaan kala ahayn marka farta adigu aad qortay sidan laatiinka kale u qornayd sidii fartii hore aad sheegaysay kala go'go'nayd oo kale u qornayd sidee bay u qornayd xuruufteedu waxay ahayd sida qaabka horta way xuruuf cusub ay ahayd oo madax bannaan صح laakiin waxay ahayd sida hadda af ingiriisigu soo ma laha gacantana marka lagu qori maayo marna ma aha makiinad ya xuruufta saas oo labada iyaduna u qaybsaneed marka waxaa kaloo bilowga xuruuftaas baarlamankan u qaybiyey iyadoo daabacan
هذه أدو مهسن هاي أنت عصور برنامج كسوق بجبيننا وعبد الشكور حاج محمد موسى عبد الشكور هير سرة يكيس فارح يوسف وطبعا سوينا نواقع بالسنة لنا عفر سمادا طوبيستا أنت إنه كل مدونة برنامج كله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.